بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan salaamay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Waxa kale oo salaamay supervisor-ka goobta. Waxa kale oo salaamaya xildhibaanada golaha deegaanka iyo kormeerka guud ama agaasimaha waaxda dugsiyada hoose ee wasaaradda waxbarashada hoose dhexe. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. insha Allah waxaan ku guda jirnaa imtixaankii shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ama fasalada 8aad iyo fasalada 4aad. waa maalintii saddexaad waxayna noogu socdaan hawluhu sidii ugu wanaagsaneed. waxaan dhammaan gobolka Awdal ardayda dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose ee imtixaanka shahaadiga u fadhiisanaya waxaan u rajaynayaa in Ilaahay imtixaankaasi u fududeeyo si guulana ugu dhamaado. talabaad waxaan dhammaan fir lahaa maadaama inuu nidhi imtixaanka hal iska ilaali dhammaan ardayda imtixaanka ku jirto waxaan leeyahay waa inaad iska ilaalisaan wixii caqabad ku ah ama dhibaateyn kara imtixaankaaga dhanaayo mustaqbalka ahaa. sababtoo ah ardayda waxaa hore loo faray in laga wada yimaado moobilada. maanta wixii moobil soo ururiyay arday loo celinayay ma jirto. waxa kaloon ku daraya waxyaabaha qaar waxa jirta tiknoolajiyada in la isticmaalayo WhatsApp-ka laftigiisa waxa ku jirta macallimiinta dugsiyada qaar. macallimiinta waan report gareynaa meel kasta joogana waan soo anshaxa waxbarasho ayaa laga mari doonaa. marka insha Allah haynu ilaashano ubadkeena waxaynu barayno si tayadii waxbarashada kor loogu qaado. idinkuna la dadaala ma aha imtixaanku mid lagu ciqaabayo laakiin waxaynu ogaanaynaa mustawaha waxbarashada ay taagan yihiin. insha Allah waxaan dhammaan wada rajaynayaa inay guuleystaan. waxaan hadda ku gudoomiyaha gobolka Awdal ee waxbarashada tiimkana wada soconay kormeerka u socda xildhibaanka golaha deegaanka kulli dhamaantiin oo wada salaamaya. waa midda labaad horta Ilaahay baa mahad leh. marka koobaad aynu mahadnaqaynaa. marka labaad sida waxabsamida leh ee ugu wanaagsan tahay ee imtixaanaadku u socdaan maalintii saddexaad ayaanu iyada lafteeda aanu hambalyo u diraynaa shacabka reer Somaliland. hal fariinaan rabnaa inaan halkan ka gudbino. halka fariini waxay tahay war ilmahan aynu maanta aynu imtixaanka fadhiisanaynaa ama imtixaanka u fadhiisanayahay waxa weeyaan ilmihii mustaqbalka ee madaxweynuhu ku jiray ee uu ku jiray dhakhtarku ee uu ku jiray maxay ahaydeen barasaabka uu ku jiray qof kasta oo shakhsi oo dalkan xil ka qaban doona wasiiradu ku jiraan. haddaynu maanta imtixaankooda ilaalin weyno oo aqoontooda ilaalin weyno berritooda dalku mugdi buu geli doonaa. marka waxaan waalidka iyo shacabkaba ku boorinayaa inay nagala shaqeeyaan. fariin dhammaan ardayda Somaliland ee galaysa imtixaanka inaan isku hawlin intelligence-koodana ay ku lumin inay qish u diyaar garoobaan waqtigooda faraha badan ay siiyaan. habeen oo dhan ay qaataan waraaqo been oo leeyahay waa imtixaankii oo la helay lacagna ku bixiyaan. waxaan u lahaa sameynina sidaas adigoo lacagtaada lumiyay haddana waqtigaaga lumiyay berito wadna haysaa dhibaatad kala kulmaysa wax soo noqonaysa imtixaankii maaha kii noo noqonaya maaha kan la wareegay habeenkii imtixaankii dhabta ahaa. marka labaad waxaan furayaa waxaan aad iyo aad hambalyo ugu dirayaa halkan wasiirka waxbarashada Habane Cabdullaahi iyo wasiirka Garas iyo dhammaan bahda waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada qaranka Somaliland. waxaan leeyahay si wanaagsan oo muddo kale ayay uga howlgaleen ugana fakeen oo feejigan yihiin iyo markaan ku daro guddoonka xafiiska imtixaanaadkuba qaabka iyo sida ay maanta uga hortagayaan qishka oo ah muhiimadda weyn ee lagala dagaalamayo ardayga isagoo si raxmo sheegtay ama agaasimaha waaxda dugsiyada hoose uu sheegay in mustaqbalkii berita ay yihiin raggii hagi lahaa ama gabadhii hagi lahayd dhammaantoodna ay habboon tahay inay iska ilaaliyaan wixii xun ee sumcaddooda berito ku dhimaya ilaan arday wax ka sheegay berito soo saari maayo ama horumar gaarsiinaya waddankiisa. wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare Cusmaan Garas anigoo ku hadlaya afka wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo afka bahda waxbarashada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo afka wasiirka waxaa 2-3 shaqo bilowday oo maalinta sabtidii bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare fasalada 4aad iyo fasalada 8aad laga baxayay. imtixaanka shahaadiga oo 5,646 arday u fadhiisteen dhammaan Jamhuuriyadda qaranka Somaliland ka kooban. safarkayga anagu waxaan ku nimid shalay Bulaxaar Qurunjeed iyo aaga soo hoos kale imtixaan ku socdo. waxaa kaloo maanta kormeer ku marinay degmada Boorama
وكترسل قبل كأوضة ترى بدو تبصي أنت قوة امتحان كسر دوار صوم مرني نبدأ نص أجنبي وإحنا عندنا فرق إن أنا قشك وحلو ترين ملنا أنا جالسين وارد كي كسر طبعاً وخسارة كويه هاي قرن كانوا خسارة كويه هاي وزارة waxbarashada iyo xafiiskeeda imtixaanaadka cidna uga habran maayaan u joojin maayaan ogolaan mayno in arday quru uu qasho oo qashka ku sii dhafadhiyo iskuulka iyo imtixaanaadka tallaabo adag baa laga qaadayaa waxaanu leenahay war dalkan iyo dadkan idinka wax u baranaya si guud ahaan waxbarashada imtixaanaadku si fiican buu socdaan habsamiya si wanaagsan oo degan oo joog fiican oo socdaan ardaydooda badan ardaydooda akhlaaq badan baa ku jirta هذه البلد مهمة يا فمان عندك صوت تاجر سياسي امتحان كان بهذا حافظة